xariifkan wuxuu soo daawanaya filimka Superman sidoo kale wuxuu soo gashay dharkiisa kale wuxuu ku dhahay anigan sidoo kale waxaan ahay Superman waalidkiisana mar walba ay ku dhiirigelinayaan inuu soo duulo oo soo boodo dhulka isagana wuxuu og jawaabaya aniga soo muduul kare waan baqayaan balse weydiis mar walba xoog wal celinaysa waa inaad soo duusho isku day inuu soo duulo hal mar dhulka baq ku soo dhahaya kadibna xariifka waxna qeey wuxuu ku dhahay aniga Superman ma noqon karo soo baxaya wuxuu soo aadaya magaalada kadibna carruurtan ay ku dhahay adiga waxaad soo gashay dharka Superman laakiin ma noqon kartid Superman sidoo kale waxay ku dhahay adiga ma duuli kartid kadibna laba furta ayuu taagay hal mar ayuuna kor u duulayaaba carruurtana markii arkaan way ka cabsahayaan ninkan waxa uu sameeyo kadibna hoos markuu isku fiiriyo wuxuu ogaanay isaga inuu duuli karo oo leeyahay awood waalidkiisana ay ku farxayaan waxa uu sameeyo wiilkooda kadibna gacanta ay kor u qaadaya hal mar ayuuna kor u baxaya hooyadii aabaha waxay waaneen wiilkooda waxay dhahay wiilkiina maxaa ku dhacay isagana kor isku duldulay xitaa shimbiraha uu dardaraya xitaa waxa uu ka soo tagaya wadanka uu joogo wuxuu imaanaya wadan kale ibni xariifkan uu weydiinay halkan waa halkii waxaan loogu jawaabaya waa Malta Iceland Superman boobo markii wuxuu isku dayay hadana inuu duulo xariifkan waa waaya ninkii hadana inta uu soo dhacayaaba dibna meeshan ay boolka kicinay xariifkan ay arkay isagana uu cabsanaya markaas wuxuu ku dhahay aniga waxaan ahay Superman wuxuu weydiinay halka laga baxo isbeen kadibna loo sheegay wuxuu laabanaya si uu u tago wadankiisa asoo bilaabay inuu raadiyo wadankiisa